السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دادا قنالكين مرة مرتدحات با وأنيقو ياسين قاسم علي ويدين تبيني برنامجك واتحانيني هلييدا أولوك إسوائيل قيبتي سيسا قالا waxaan muuqaalkani kula faguraynaa taariikh nololeedkii mudan daahir xaaji ismaan ee ahaa xubintii toddobaad ee dhalinyarada ururka SYL. inta aan muuqaalkani guda galin fadlan subscribe wuxuu ku dhashay mudan daahir xaaji ismaan magaalada Hobyo ee gobolka Mudug sanadii 1925 kadib qoyskoodu waxay u wareegsadeen magaalada Muqdisho isaga oo yar 3 jir ah. wuxuu ku barbaaray guriga waalidkiisa isagoo tarbiyo wanaagsan helay. waxa uu quraanka ku bartay magaalada Muqdisho wuxuuna ka qaatay culimada magaalada mabaa'idda islaamka iyo culumteeda. waxa uu bartay fiqiga iyo luqadda carabiga. markii uu gaaray 10 sano ayuu ku biiray iskuulka hoose ee Talyaaniga isaga oo ka bartay luqadda Talyaaniga. kadib waxa uu wareegay iskuul caadi ah oo uu ku bartay luqadda Ingiriiska. wuxuu noqday qof si siman ugu wada hadla saddexda luqadood Carabiga, Ingiriiska iyo Talyaaniga. waxaana xoogsaday aqoontiisa luqadda Ingiriiska xilligii uu isticmaalka Ingiriiska haysay Soomaaliya. wuxuu ahaa xubintii toddobaad ee ka mid ka ahayd xubnihii 13 ah ee aasaasay xisbigii midnimada dhalinyarada Soomaaliyeed. waxa uu ahaa xubin daacad ah si wanaagsan u shaqeeya arrimaha maamulka dhex isaga oo kala agaasimay howlaha ay tahay in la qabto iyo sida ay isugu xigaan iyo isagoo u sameeyay waqtiyeen si ay u sahlanaato shaqadu. waxa uu ahaa shakhsi firfircoon khibrad weyn u leh nidaamaynta howlaha. wuxuu la gooni ahaa in uu u dabagalo arrimaha hoose ee xisbiga. sanadii 1944 waxaa loo magacaabay mudan daahir xaaji ismaan in Karaani uu ka noqdo qaybta waxbarashada ee xukuumadda Ingiriiska ee gumaysiga. waxay ahayd markii ugu horeysay ee uu qabto shaqo dawladeed. wuxuuna noqday tusaale wanaagsan isaga oo waliba daacad u ahaa xisbiga. waxa uu ahaa mid yimaada xarunta xisbiga casarkii markii uu ka soo baxo shaqada dawladda. wuxuu bilaabi jiray shaqada xisbiga. waxaa loo doortay ninka haya sirta xisbiga. gumaystihii 2 jeer ayuu mudan daahir ka tarxiilay magaalada Muqdisho. midii ugu horeysay waxa ay ahayd 1948 waxaa loo tarxiilay magaalada Ceelbuur iyadoo lagu tuhmay in uu ka qayb qaatay arrin ka dhacday Muqdisho. taariikhduna ahayd 7 bishii 10aad 1948 dhacdadaasi oo lagu magacaabo dhagax tuur. marka labaadna waxaa loo tarxiilay magaalada Ayl kadib markii lagu eedeeyay in uu ka dambeeyay arrin ka dhacday magaalada Kismaayo 1952. sanadii 1952 waxa uu ku biiray iskuulka siyaasadda ee Talyaaniga ee ku taalay Muqdisho isaga oo ka bartay cilmiga siyaasadda. kadibna waxa uu Talyaaniga ka helay deeq waxbarasho oo 1 sano ah oo ku dhameystiray waxbarashadiisii. sanadii 1954 waxaa loo magacaabay wakiilka inuu ka noqdo ninkii xukumayay Gaalkacyo. wuxuuna ahaa qofkii ugu horeeyay ee loo magacaabo jagadaasi oo kale oo muwaadin Soomaaliyeed ah. markii uu dhameystay tababaradii khibraduna uu u leeyahay ayuu noqday gudoomiyaha gobolka Mudug taas oo uu ku mutaystay firfircoonidiisa iyo sidii fiicneed ee uu shaqada u qabtay iyo kalsoonidiisa.